waxaa dalka Gambia ka socota tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee ugu horeysay tan iyo markii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Yaxya uu dalka ka cararay ku dhawaad 5 sanadood ka hor. natiijooyinka ayaa la sheegay in lagu soo bandhigi doono goobaha codbixinta. madaxweyne Adama Barrow iyo murashaxa mucaaradka ugu weyn ayaa mid kasta waxa uu sheegay inuu guuleysan doono. waxaa doorashadani ku tartamaya 6 murashax oo uu ku jiro Adama Barrow oo hadda haya xilka madaxtinimada ee dalkaasi. doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo u ah isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad maxmiilka u tahay. ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. u soo wareeg Somtel. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.